kulanti wacan wanaagsan dadka na daawanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Somali American TV on si toos idin ka soo gudbinayno studio-heena ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee ariga Mareykanka. barnaamijkan ku soo foolaya daawadayaal waxaanu ka hadli doonaa dilalka kaska ah ama ula kaca ah ee inta badan rag Soomaaliyeed ay u geystaan xaasaskooda kuwaasi oo ay qudha ka jiraan amaba ay nafgooyo geystaan oo soo badanaya sababaha keenay iyo qiyaastii qaar ka mid ah dadkaasi oo aan xusi doono sida ay u xudheen waxaanu barnaamijkan aan ka hadli doonaa si gaar ah dhacdadii ugu dambeysay ee wadanka Jarmalka oo nin Soomaaliyeed oo gabadh Soomaaliyeed oo marwadiisa uu dilay sanadahan u dambeeyay waxa dhaqanka Soomaalida ku soo badanayay daawadayaal nin xaaskiisa qudha ka jira ama badila inkasta oo haba yaraadaan iyana ay barbar socdeen haween ragii qabay dhegta dhiiga u dara amaba khaarijiya aan ku bilaabo dhacdadii u dambeysay kadib markii wadanka Jarmalka uu nin Soomaali ku dilay marwadii uu qabay dhacdadan ayaa daawadayaal waxa ay u dhacday si kadis ah oo waliba naxdin iyo uur ku taalo leh ka gadaal markii uu nin xaaskiisii ku dilay tooray waliba si arxan darro ah lamaanahan ayaa waxa isqabeen muddo 2 bilood oo kaliya ah gabadha la dilay ayaa waxa ay kamid ahayd qaxooti Soomaaliya oo laga soo qaaday wadanka Masar oo dawladda Jarmalku ay magangeliyo siisay waxa gabadhaas ay guursatay ninka ugu dambeyn nolosheedii ka takhalusay ee galaaftay waxa gabadhaasi ay hore u haysatay wiil yar oo 2 sano jiray oo ay nin hore u dhashay wararka ninkaasi xaaskiisa dilay ku saabsan ayaa tilmaamaya inuu maandoorsanaa markii uu xaaskiisa dilayay ninka wax dilay ayaa la sheegay in uu ka soo guuray markiisii hore wadanka Belgium kadib markii halkaasi sharci looga diiday ma jirto daba sabab rasmi ah oo la og yahay oo ninkaasi gaarsiisay heer uu xaaskiisa ama marwadiisa uu ku dilo wararku waxa intaasi ku darayaan in ilmihii yaraa ee ay gabadhu dhashay haatan dawladda Jarmalku ay iyadu qaadatay wararka aan daawadayaal ka helayno arrimahaasi ayaa waxa ay tilmaamayaan in gabadh ee daw ah wiilka yar ee imika ay dawladda Jarmalku qaadatay in ay u dacwoonayso oo ay ku jirto dadaal ay doonayso in ay dib u soo hanato wiilkaasi yar oo ay iyadu koriso isla wadanka Jarmalka ayaa daawadayaal sida laga yaabo in qaarkiin aad maqasheenba waxa 3 toddobaad ka hor ka dhacday dhacdo kale oo iyaduna ugu bahayd nin ayaa qaniyo ku goostay ama ku googostay haweeney nin kale u dhaxday oo ay isku guri deganaayeen haweenada ayaa ninkeedii maqnaa markii nin kale uu canka iyo meelo kale oo jirkeeda ka mid ahba inta uu cantuugay uu hilibkii goostay intuba waxay ahaayeen Soomaali ma cadda iyaduna sababta ninkaasi gabadha Soomaalida ah uu sida naxariis darrada ah uu u qaninay amaba u googostay waxaana lagu tilmaamay inta badan booliska dawladda Jarmalku in ay adag tahay in warar laga helo dadka ajaanibta ah amaba soo galowga ee wadankaasi Jarmalka soo gala marka ay dambiyo iyo dhibaatooyin galaan in loo diido warbaahintu in ay xog kale si hesho ilaa inta maxkamad la soo taagayo waana sababta keentay in dadkaasi Soomaalida ah ee dilalkaasi iyo dambiyadaasi geysta in wararkoodu ay aad u yaraadaan amaba laga gungaari waayo wadankan Mareykanka daawadayaal ayaa gobolka California lagu magacaabo ayaa sanadkii hore nin Soomaali oo xaaskiisa isna si arxan darro ah uu u dilay dabeetana inta uu gurigii ku sii xiray uu baxsaday inkastoo markii dambe ninkaasi laga soo qabtay wadanka Panama nin kale oo Soomaaliya ayaa gobolka Minnesota isaguna waxa uu rasaas ku dilay gabadh xaaskiisa hore ahayd kadib markii uu ka maseeray waliba isagoo aan gabadhaasi markii dambe qabin ninka hore ee California isagoo xaaskiisa ku dilay ee laga soo qabtay wadanka Panama ayaa daawadayaal waxa la ogaaday in gabadhaasi ay dhimatay oo ay meey tahay xaaskiisii
2 maalmood markii ay guriga ku jirtay. walaalaheed oo gabdho badan ayaa xiriir telefoon oo ay la sameeyeen waxa ay gaari waayeen amaba waxa ay ka wari waayeen walaashood. markii 2 maalmood telefoonkii laga qaban waayay ayaa dabeetana waxa ay warkii gaarsiiyeen amaba ay u gudbiyeen ciidanka police-ka ee gobolkaasi. ciidanka police-ka ee California ayaa iyaguna markaasi gurigii jabiyay, dabeetana waxa ay ugu dhex tageen meydkii haweeney uu qabay ninkaasi baxsaday. akhirtaankii ayaa ninkaasi waxaa laga soo qabtay waddanka Panama isagoo u duulay oo doonaya in uu kasii dhoofo oo uu u gudbo Afrika. sidoo kale dhawaan ayaa iyana ay ahayd daawadayaal markii aan maqalnay 2 dumar oo Soomaaliya oo kala duwani in midi ay ninkeedii dhuunta mindi ka gelisay, midina ay biyo karkaraya ku shubtay. labada ninba aakhirkii waxaa la soo sheegay inay u geeriyoodeen nabaradii ka soo gaadhay dhaawacaasi, waxaana dhacdooyinkaasi ay ka dhaceen iyaguna magaalada Muqdisho ee waddanka Soomaaliya. maxaa haddaba daawadayaal keena dhibkaasi iyo heerka uu ninku gaadho in uu marwadiisa ama xaaskiisa dilo? waxaan u kala qaybin karaa 2 qaybood oo ah Soomaalida qurba joogta ah ee qurbaha dambiyadaasi ku gasha iyo qolqol joogta ama Soomaalida gudaha Soomaaliya joogta oo labada dhinacba ay kala duwan yihiin. alaba gudaha Soomaaliya dadka jooga ama raggaasi waxa dilalkaasi ay ku yimaadaan masayr labada dhinaca amaba qoyska lamaanaha isqaba. masayrkaasi ama run ha noqdo ama ha noqdo tuhune waxa uu gaaraa heer midkood uu midka kale dilo, waana runtii arrimo ku cusub Soomaalida amaba Soomaaliya marka tan iyo intii ka horeysay dagaaladii Sokoye intii ay dhaceen oo waxyaabaha caynkaas oo kale ay aad u yarayd. qurbaha marka la yimaado ayaa dilalka raggu ay xaasaskooda u geystaan waxa ugu weyn isticmaalka maandooriyaha sida khamriga iyo xashiishka oo rag fara badan oo Soomaaliyeed marka ay isticmaalaan dabeetana ay xaaskii ama gabadhii uu qabay uu dilo. waxaa intaasi weheliya marka maandooriyahaasi laga soo tago iyo xashiishka in uu mararka qaarkood amaba ay u badan yahay kayskaasi ah in ay uu soo kala dhex galo qoyska isqaba khilaaf iyo muran ballaaran oo isagu ka dhasha ama ka yimaada dhinaca dhaqaalaha oo ay isku qabtaan lamaanuhu. dhaqaalahaasi daawadayaal uma badna dhaqaale ka soo gala dhididkooda amaba xoogooda oo ay shaqaysteen ee inta badan waxa uu ka yimaadaa gargaar amaba dhaqaale ay dowladuhu siiyaan qoys si fursad ah. markaasi ma aha markaste fursadaasi oo markaasi ay soo gasho dhaqaale mug weyn oo gaari kara $100,000 ilaa iyo $1 milyan inta u dhaxaysa. dhaqaalahaasi ayaa marka uu soo galo guriga waxa markiiba bilaabma muran iyo khilaaf. muranka iyo khilaafkaasi ayaa waxa uu ku salaysan yahay sida qoyskaasi ay lacagta u kala qaybsanayaan, sida lacagta ay u qaybsamayaan iyo waliba mashaariicda ay doonayaan in ay geliyaan dhaqaalahaasi si ay lacag uga helaan. dad fara badan oo Soomaaliya oo dalalka Westernka iyo qaaradan Mareykanka jooga ayaa dhaqaalaha waxa lagu siiyaa inta badan mid noqda gashi amaba marka qof ama ilmo ay dhaleen si gardarro ah loo dilo amaba uu dhaco shil inta badan laga gardaran yahay amaba iyagu ay gar leeyihiin oo markaasi dhinaca dawladaha ka yimaada kuwaasi oo loo qoondeeyo in markaasi dhaqaale lagu qanciyo qoyskii uu qofkaasi lama huraanka ka dhintay amaba si khalada uu dhakhtar ugu dhinto marka qaliinka lagu sameynayo khaladkaasina uu ka yimaado dhinaca xukuumadda. qofkii dhintay dhimay laakiin waxa la ilaaba qofkaasi dhintay markii dhaqaale xoog lihi uu akoonka ku soo dhaco ayaa labada qof ee isqabaaba ama lamaanuhu ay markaasi ku waabiristaan sidii ay adduunyada haddana dib ugu fikir lahaayeen in noloshooda ay wax ka bedelaan. dhaqaalahaasi ayaa wuxuu keenaa markaasi muran iyo khilaaf mararka qaarkood dacwadoodu ay dowladdii dhaqaalaha bixisay dib ugu noqoto. dacwadahaasi ayaa marka ay aloosmaan waxa ay keenaan dhaqaalihii la siiyey qoyskaasi ka sakow in ay markaasi furfurmaan oo qoyskii marka hore ay kala tagaan waliba ay dhacdo in midkood la xidho
oo gudaha la dhigo arrimahaasi dhaqaalaha la isku qabto ayaa badanaa waxa ay ka yimaadaan dhinaca dumarka oo aan ku qanacsanayn sida ninku wax u wado amaba lacagta iyo mashruuca uu doonayo in uu geliyo iyadoo ka shaksan inuu si kale dhaqaalahaasi faraha badan leh uu u isticmaalo oo tan ugu horeysa ay tahay in uu marka ugu horeysaba uu ka guursado dadkaas waxay isku dayaan in ay Afrika tagaan oo ay dhaqaalahaasi badi Afrika geeyaan waana tamuranka keenta oo iyo isqabqabsiga qoyskaasi isqaba waxa kale oo dhacda shaki iyadoo haweeneydu ay ka shakido in ninkeedu uu lacagtan gabi ahaanba qaato oo isagu keligii isticmaalo faa'iido iyo khasaare wuxuu doonayaba ha ka keenay waxaana ay gudbisaa mararka qaarkood dacwado la tilmaamo in ay been abuur yihiin amaba aanay waxba ka jirin laakiin ay tahay tuhun in ay ku eedeynayso ninkeedu in uu ama ay ka shaksan tahay ninkeedu in uu lacagtaasi uu qaato amaba uu ka dhaco waxaana markaasi ay isku daydaa inay u samayso kiis been abuur ah oo ah in uu gacan u geystay amaba afligaado xoog leh uu u geystay oo ay dawladda u gudbiso dacwadaasi ayaa laga yaabaa markaasi in ay keento sidii hore baan u sheegnay burburka qoyska iyo in ninkaasi aan dembiga lahayn ee tuhunka un ah in loo qaato in arrimaha gabadhu ka hadlaysa ay dhab noqoto oo gudaha la dhigo daawada aad iyo aad ayay u yartahay in dadkaasi wiilkoodii ama qof ay jecel yihiin ku waayay shil ama sidii doontaba ha u dhacday oo qofkii dhintay oo dhaqaalihii loogu bedelay ka faa'iideysta dadkaasi waa dad aad u tiro yar waana dad inta badan markaasi ah kuwa daacadiisu ah oo maskaxda ka shaqaysiiyey oo ka faa'iideystay dhaqaalihii ay dawladdu u soo gudbisay si kastaba noqotay daawadayaal qurbaha ayay u badan yihiin in ay ku soo badanayaan ragga iyagu xaasaskooda dilaya oo mararka qaarkood maandooriyahaasi marka laga tago aanay wax macno leh oo ay u dileen aanay jirin laakiin cadaawadaasi faraha badan leh ee timaada marka nin uu xaaskiisa dilayo ayaa iyaduna waxay cuqdad badan ku dhalisaa haween fara badan oo Soomaaliyeed waxaana haween badan ay markaba shaki ka qabaan ninka qaba amaba ninkeeda oo ay u qaadato hadiiba ay caro iyo dagaal iyo muran yimaado inay aad u fududahay in uu dhigta dhiiga u daro daawadayaal barnaamijkaasina intaasi ayaan ku soo koobaya iyo dhaqankaasi cusub ee Soomaalida ee dilalka xaasaska iyo ragga isqaba ku soo kordhaya gaar ahaan qurbaha tan iyo kulankeena dambe inta aynu barnaamijkan kala daawadayaal dib ugu kulmi doono waa Cali Xalaale oo dhamaantiin badi ka tagay sida iyo nabad geliyo